Soo dhawaada gabdhahayga qaaliga quruxda badan waa challenge-gii timaha. Waxaan idiin wadaa maanta nafaqo aad iyo aad faa'iido badan, waxtar badanna ku leh haddii aad ka cabanaysa qaleelka timaha, inay timahaada ay qalalan yihiin ama ay abaar ay yihiinba, haddii timaha ku jajabayaan ama ay ku burburayaan ama ay hoos ka soo siibanayaan. Sidoo kale haddaysan timahaada kuu bixayninba ee marnaba meeshoodiiba ay dhaafaynin, nafaqadan timaha way kuu bixinaysaa oo way kuu dheeraynaysaa. Qaleelka timahana way kaa caawinaysaa oo timahaada way kuu qoynaysaa, way kuu nafaqaynaysaa, salka hoose ayay kaaga soo nafaqaynaysaa, borotiin ayay kuu siinaysaa. Waxaa kale kaa caawinaysaa haddii aad leedahay madax xanuun aad leedahay, madaxa way kuu dejinaysaa, wayna kuu qaboojinaysaa. Madaxaadana waxay kaaga dhigaysaa madax deggan oo jawi deggan ayay kaaga dhigaysaa oo way kuu qaboojinaysaa. Sidoo kale timahaada haddii uu kaa lumay kalarkoodii hore, timo madow oo qurux badan oo xabad weyn ayay kaaga dhigaysaa. Nala daawo muuqaalka oo nala sheer gareey. Bismillaah, assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Soo dhawaada asxaabtayda, waa mar kale iyo muuqaal kale cusub. Fadlan muuqaalka nala daawo nala sheer gareey, asxaabtaada kale la wadaag. Haddaad igu cusubtaa sidoo kale soo dhawow channelka subscribe dheh, gambaleelka furo si mar walba muuqaalada aan soo geliyo aad u noqoto daawadaha ugu horeeya ee daawada. Waad ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkan, waan kaaga mahadcelinayaa. Wixii ra'yigaada commentiga nagula wadaag. Soo dhawaada nafaadayna ayaan diyaarsanaynaa insha Allah idinkana nala socdo oo nala diyaariyo muuqaalka nala dhamayso oo like fara badan noo saar. Asxaabtayda waxaan halkan ku haystaa sidaad u jeedaanba avocado ayaan ku haystaa hal jeex oo avocado aad u bislaata ayaan ku haystaa oo hal jeex ah. Avocado waan ognahay borotiinka, faa'iidooyinka, fitamiinaadka ka buuxo. Maasha Allah. Qof walbana wuu dareemi karaa. Nafaqa ayaan ka samaysanaynaa. Nafaqadeena maanta waxa ay ku saabsan tahay in ay timaha kuu dejiso, ay kaaga dhigto timo qoyan, qurux badan, maasha Allah, ay kaaga dhigto, kuu dheerayso, kuu bixiso. Waa challenge timo dheerayn ama timo bixin ah. Sidoo kale waxa aan isticmaalay ama aan soo qaatay waxa ay tahay hal qaado oo subag ah ayaan soo qaatay. Subaga fadhiya ee burcadka ah haddii aad heli karto ama moringa butter haddii aad heli karto. Haddii aad heli karto xitaa subaga caadiga ah oo burcadka, subag Soomaaliga ah ama subag Itoobiyaanka ah midka aad heli karto, waad isticmaali kartaa. Hal qaado oo subag ah ayaan qaatay iyo jeex avocado ah. Nafaqadan waxa ay kaa caawinaysaa ama ay timahaada kuugu soo siyaadinaysaa in ay kaaga dhigto timo qurux badan, xariir ah, madow, dheer, jajabkaas iyo waxyaabahaas ay kaa caawiso qaleelka oo kale inay kaa caawiso. Timahaada haddii mar walbaba ay qalalan yihiin, way jajabayaan oo ma kuu baxayaan oo ma kuu dheeraanayaan. Tin nafaqaysan ayaa baxda oo dheeraato oo korto. Laakiin haddiiba timahaadiba ay mar walbaba qalalan yihiin, abaar yihiin, basaasaysan yihiin, joog meeshaadi joog lee waaye waad isku daalaysaan. Saliido qaali iyo waxyaabo kalaadna ka daba cararaysaa maanta oo idil. Laakiin sidan ayaa kaaga fudud inaad timahaada u soo nafaqayso oo aad u hagaajiso. Sidoo kale waxaan isticmaalay waxa ay tahay aloe vera gel hal qaado ayaan isticmaalay. Waan soo shiiday aqyaareey waa kaasaa sidaas ayay ku soo baxday. Maasha Allah, tabaarakallah. Waxa ay ku soo baxdan ku dhahay nafaqa the best. Nafaqa kama dambaysan ku dhahay. Alaabtan timaha way ku jilcinaysaa, way ku dheeraynaysaa. Madaxaadana waxay kaaga dhigaysaa madax qabow, jawi deggan ayaad qabsanaysaa. Haddii aad leedahay xitaa madax xanuun, dadka mar walba madax xanuunka joogtada qaba aad tahay, madaxaada way kuu jejinaysaa oo madax deggan ayay kaaga dhigaysaa. Timaha way kuu bixinaysaa. Qaleelkaas iyo waxyaabahaas oo dhanna way kaa caawinaysaa. Timahaada waxay kaaga dhigaysaa timo qoyan, jilicsan, nafaqaysan, madow, dheer, xariir ah, qurux badan ayay kaaga dhigaysaa. Waa nafaqo borotiin ah, fitamiinaadna aad ka helayso. Waxyaabaha kiimikaalka ah timaha aad marsanaysana aad uga maarmayso. Jilicsooyinka aad uga maarmayso. Maasha Allah, isbuucii haddii aad 2 jeer alaabtan aad samaysato, maasha Allah, tabaarakallah, timahaada natiijo weyn ayaad ka dareemaysaa. Isbeddel weynna waad ku arkaysaa. Sidoo kale timaha way kuu madoobeynaysaa. Timahaada timo xabad weyn oo madow oo qurux badan ayay kaaga dhigaysaa. Haddii kalarka hore oo quruxda badnaa uu kaa lumayna way kuu soo celinaysaa. Timahaadana waxay kaaga dhigaysaa timo xariir ah oo aad u qurux badan. Waa kana hadda asxaabta sidaas ayaan ka soo dhigay oo soo shiiday. Maasha Allah, wixii indhaha deeqo ay uurkana deeqaa la yiri. Indhaha ayaad ka dareemi kartaa. Waa alaab borotiin ah,
nafaqo ah, salka hoose ayay kasoo nafaqeyneysaa. Waxaad sameyneysaa waad ku masaajeyneysaa timahaada 4 qeyb ayaad u bixineysaa. Qeyb kasta salka hoose uga soo nafaqeey, kusoo masaajeey. Marka aad kusoo masaajeyso ku duuduub, marka aad ku duuduubto waxa aad xirataa bacda yar oo qubeyska ama waxyaabaha markii kareemaadkii madaxa la marsado, maaskiyada la marsado, la xirto xiro. 2 saacadood oo complet ku joog way kugu filan tahay intaasaa kaa badan. Muhiim marka aad madaxaada aad marinayso waa inay timahaada ay dhaqan yihiin oo ay nadiif yihiin. Hadhow marka aad ka dhaqayso waxaad sameyneysaa biyo yar oo qandaca oo diiran ayaad isaga dhaqaysaa. Wax shaambo ah oo aad isticmaalaysa malahan. Shaambo oo dhan kuma dhaqaysid. Biyaha qandaca ah bas ayaa kaa badan. Marka hore laakiin timaha soo dhaq, soo nadiifso timahaada oo dhaqan oo nadiifsan waa inaad u isticmaashaa. Nafaqadan dhan walbaba way kaa caawineysaa. Timaha burburkoodana way kaa caawineysaa. Timaha haddii mar walbaba ay ku burburayaan way kaa caawineysaa. Wadee kale waxay kaa caawineysaa oo kale timahaada in ay kaaga dhigto timo adag ay kaaga dhigto. Adeega aan ka hadlayno waxa ay tahay yacni tima aanan siibanaynin. Tinta waxaad arkaysaa iyadoo aanan burburaynin ee tinti oo dheer oo isqabta ee hoos ka soo siibanayso. Marka way ku adkeyneysaa salka hoose ayay kaaga soo adkeyneysaa oo waxay kaaga dhigaysaa tima hoos ka nafaqaysan ayay kaaga dhigaysaa. Waadna uga maarmaysaa waxyaabaha kiimikaalka ah. Waad uga maarmaysaa jilciso waad uga maarmaysaa. Timahaadana waxay kaaga dhigaysaa timo qurux badan, nafaqaysan, dhalaalayo, midabkoodana midab qurux badan uu yahay. Haddii madow ku ahaayeen timahaada kalarkii madoobay ee kaa lumay xitaa way kuu soo celinaysaa. Waa nafaqo, waa jilciso, waa alaabaan ku dhahay inaba aan caadi ahayn si yar oo fudud aad gacantaada uga samaysan karto. Hadda waxaan ka sameynay waa subag, avocado iyo dacar ayaan ka sameynay. Subaga timaha wuu qaboojiyaa, madaxaada wuu kuu qaboojinayaa, kuleelkaas faraha badan ee madaxaada ka baxaya xitaa uumitadaas wuu kaa dilayaa, wuu kuu qaboojinayaa. Haddii aan neerba xanuun iyo madax xanuun aad leedahay wuu kaa caawinayaa. Avocado iyadana sidoo kale waa borotiin, madaxa way kuu qaboojinaysaa oo way kuu dejinaysaa. Timahaadana way kuu bixinaysaa oo way kuu dheereynaysaa, way kuu nafaqeynaysaa. Tinta haddii aad hoos ka soo nafaqayso qasab inay korna ka nafaqaysmayso. Laakiin haddii aad korkan waxoogo yar oo kiimika uga daadaadiso oo aadan waqti siinin waad isku wareereysaan. Dukaan kastana waad taagnaanaysaa. Cabashadaadana ma dhammaanayso. Maalin walba waxaad raadinaysaa wax timaha bixiyo, wax timaha siin. Laakiin timahaada haddii ay qalalan yihiin marnaba kuuma baxayaan jugjug meeshaadii joog lee waaye. Timaha waa inaad qoysaa oo waxyaabaha kuu qoynayo, kuu nafaqeynayo, borotiinka kuu siinayo aad isticmaashaa. Waqti badan aad gelisaa. Laakiin timo qalalan ee basaasaysan ma baxayaan. Mar walbana way kaa burburayaan oo way kaa jajabayaan oo way kaa siibanayaan oo meeshii aad ka imaatay kugu celinayaan. Muuqaalkana la daawo oo nolosha share garay asxaabtaada.